kulanti wanaagsan daawadayaal dalka Soomaaliya dagaal ku jira waxa rabaa in la wadaago qalaadaadka dhinaca dawladda ka dhacayo iyo sidoo kale farsamo xumada dhinaca dagaalka si loo guuleysto kooxda argagixisada ee al-shabaab waxay u baahan tahay wadajir iyo dadka xataa inay ka hadli karaan dagaaladan mashruuc u ekaaday ama la rabo in lagu fashiliyo halganka al-shabaab lagu xoreynayo waddanka Soomaaliya adii aragtida la wadaagi kartaa qaybta sifaalada nawrad muuqaalkana si shargari aad iyo aad amaasanta maanta shirkii golaha wasiirada Soomaaliya ayaa dhacay waxa shir gudoominay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxaana goobjooga xubno kamid ah golihiisa wasiirada ama intooda ugu badan wasiirada waxyaabaha muhiimka ah ee diiradda lagu saaray waxa kamid ah arrimaha dagaalka oo la go'aamiyay maadaama Ramadaankii laga soo dhamaaday ciidii laga dhamaaday la rabo in dagaalkii la dardar geliyo oo al-shabaab deegaanadii ay soo galeen laga saaro kuba cusubna laga qabsado guddi ayuu magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre shirkii golaha wasiirada ee maanta ayaa lagu magacaabay guddiga waxa loo xil saaray dagaalka inay dardar geliyaan taageeraan ciidamada laakiin waa dad nuucay ah ma yihiin kuwa dagaalka wax ka gali kara oo dagaal wax ka yaqaana ama kuwa deegaankaasi wax ka yaqaana ama bulshada kuba abaabuli kara oo isu keeni kara ma yihiin su'aalahaas ayaa durba dhashay adiga aragtidaada waan la wadaagi kartaa waxaan kula wadaagayaa magacyada guddiga gudoomiye waxaa looga dhigay Cabdisalaan Cabdi Cali oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ee labaad gudoomiyaha guddiga ayaa laga dhigay waxa ku jira wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxa ku jira wasiirka bay'ada iyo isbeddelka cimilada waxa ku jira wasiirka caafimaadka Soomaaliya waxa ku jira Maxamed Cali Xagaa oo wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya ka tirsan ama hay'adaha amniga wasaaradda amniga dawladda ka tirsan waxa kale oo kamid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Maxamuud Macalin gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka oo aan ognahay dadkii uu dagaalku ka kaashan lahaa abaabuli lahaa bulshadii uu la kulmi lahaa oo wax ka raadin lahaa meelo kamid ah gobolada shabeellada dhexe dega intuu maalmo ka hor aflagaadeeyay cara ka dhalatay kadibna tuuladii ama xaafadii isagoo ka dhashay ayadan laga soo cararo ilaa hadda al-shabaab ay haystaan gudoomiyaha gobolka Banaadir oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku amray inuu gargaar iyo gurmad gaarsiiyo ciidamada macawsleyda oo isagana Muqdisho intuu dhaafi waayay gudoomiye kamid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka u wakiishay iyo sidoo kale xubnaha kale oo aan ayagana aan ognahay mid kasta halka uu joogo ayaa loo magacaabay guddigan inay dagaalka dardar geliyaan oo ay madax ka noqdaan oo ay qabanqaabiyaan dagaalkan hadda wuxuu ka socdaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya si gaar ah wuxuu ka socdaa Hirshabeelle si gaar ah waliba gobolka Shabeellada Dhexe wali waxa muuqanaysa dawladda Soomaaliya inaysan dhab u galin dagaalka iyo inaysan raasanin dadkii wax ka gali lahaa iyo dawladdu inaysan diyaar u ahayn inay la macaamisho dadweynaha oo ay fursado muhiim ah dayacayso ama ay bartaraynayso si looga adkaado kooxda xag jirka ah ee al-shabaab oo dadka Soomaaliyeed musiibo weyn ku ah oo dhibaato xoog leh ku haysa haddaba dadkan marka laga reebo Bashir Goobe oo darajada ugu sareysa ciidamadu ka gaaray haddana isaga ah ninka ugu darajada sare ciidamada Soomaaliya inta kaleentood waa dad siyaasad ahaana bulshada Soomaaliyeed aysan waxba ka gali karin iyo dad aan deegaankii iyo dadkiiba aqoonin howlo ciidan aan shaqo ku lahayn oo intaas ku darsaday iyo sidoo kale rag meesha ay soo galaan dadka Soomaalida xataa hadii wax kasta lagu sameynayo ay ka cararayaan sida Maxamuud Macalin oo kalsoonidii bulshada dhan u waayay oo loo haysto nin musuqmaasuq badan oo macaash badan ka sameeyay aad uu joogay iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo nin aan hadda wali activity iyo maamul adag la soo bixin oo nin iska jeefo hurdo loo arko haddana London ku maqano caruurtiisa damaashaad iyo u aaday dabaaldeg u aaday ciida ayaa ku jira iyo wasiiro ayagana aanan saameyn weyn ku lahayn oo dagaalkeen waxba ka aqoonin bulshadii abaabuli karin haddaba maxay raggan ka bedeli karaan dagaalka maxay ku kordhin karaan dadka Soomaalidu waxay u baahan yihiin dagaal dhab ah al-shabaab laga adkaado la cirib tiro bulshada la abaabulo ciidamada la dhiirigeliyo furmaha la tago هيلي هو لو قرب يستاجو سيدا بنتلا واحد كسر كله ما كسر بيحكي كان رجع ما كو قناع سنتها أديك أركت هذا قيمته صيف على هذا النورب مقال كان سيشر جري هدي أنا نقول عصوتها نقول صبير أدي هذا مع سنته نكاسو كلوا كاسا يعني من تدنموا واسحنت هاي دجال كلوجا ما هارو سيدي دبر داوع هل جن سيدي سبر داوع لوجا ما هكذا وحن هل كانوا إيمان إلا الدير رواي خوارج إن لا دجال ما واي دجال السعودة هدي لي ردتك ديجان كان ردتك أول ما سنة ردتك ديجان كان جوجو شبه لا ده دجال عاد وادجا كسعودة والوسود دولي
cadowgaa kusoo duulay khawaarijaa kusoo duushay dad diin been sheeganaya kusoo duulay marka dadka deegaankan degan iyo soomaalida kale dagaalka uma sinna waxaa mas-uuliyadda ugu badan dadkaanay saaran tahay marka saas darteed waxaa la rabaa in la muujiyo geesinimo dheeraad ah iyo in la muujiyo raganimo dheeri ah in halkaas laga muujiyaa la rabaa khawaarij waa taqaanaanoo taliyahana waa ka sheekeeyo waqti badanaa la soo dirirteenoo ilaa ay halkaasi cali axmed hadhihin kawsar hadhihin deegaanadan kale saas u teedsan ayaa dad badan kula dirireen madax wargala ma lehe madax mudac galay leeyihiin madaxooda mudacaa gala mogiye madaxooda war ma galo qofuuna warankaaga kaa reebin warkaaga wax kama taraa la yidhahdaa khawaarij haddiisan xabadaadu aysan jirkiisa taabanin meeluu kaaga waabanayo iyo meeluu kaaga haraya ma jirto dagaalka aan ku jirno dagaal jihaada oo diin ah waay diin inay tahay sida ayaga u sheeganayeen uma sheegaynay annaga waxaan u haysanaa diinta xujaan ugu haysanaa culamadii soomaaliyeed markii la fadhiisiyey waxay dhaheen dadkaas khawaarij waa khawaarijtuna diintaa sheegtay qofka la dagaalana waa mujaahid qofkay dilaanna waa shahiid qofka iyaga dilana waa jannow galaa waxaan rabnaa marka hadda in laysku wada xirmo dowladdiina aad garab istaagtaan dowladdu waxay awooddo way bixi doontaa oo ama murxo ah ama taageero kale ah guddiyadiina iyo dadka horjoogayaasha u ah tiimka ayaana taliska iyo dadka annaga guddiga socdo ayaan kala hadli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa inaan kusoo xirxiro qof kasta way dhimane qof raagaya ma jiro dhimashaduna waxay isdheertaa waxaa waaye qofna si sharaf leh u dhintaa qofna si gunimaha u dhintaa asoo hoos fiirihaya ayaa la dilaa waxaan rabnaa bacdamaa uusan muuqeena uun raagayn magaceena inuu raagaan rabnaa oo dadku ay isku duubnaadaan si sharaf leh oo gobonnimo leh oo gunnimada ka fog in loo diriro oo laysaga celiyo cadowga maalkaagu khatar ku yahay naftaadu khatar ku yahay diintaadu khatar ku yahay caqligu khatar ku yahay nasabkaagu khatar ku yahay sharaftaadu khatar ku yahay wax kastoo diintu ilaalisay ayuu khatar ku yahay waxaan rabnaa dadka deegaanka ah inay isku duubnaadaan oo intaan haddii laysku keenay oo dadkoodii iyo dadkii la diriri lahay annaga hadda halkan waxaan u joognaa waa ogtihiin amba dhegta waa naga maqlayseen 2 bilood ku dhawaad halkaasaan joognaa meelaan u soconno male garabkiinaan ka diriraynaa garabkiinaan nahay idinka dhihi mayno gala dagaalka waa idinka aamusaynaa dhihi mayno waa idinla safanna nin hadda oo soo hitaayaa jiro sideedaba sida ninkaasoo kale waa kaasaa wuxuu yidhi ninkii haddii luqunta la jiro lugaha meermeersha yacni mintidnimo waay waa saxan tahay dagaalka loogama haro sideedaba dhaawac halgan sidiisaba dhaawac loogama hakado aada u maasantihiin ku soo dhawow Soomaali Suudanis Specialist Hospital oo ku guuleystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa isbitaalka ka howlgala 125 dhakhtar oo 30 kamid ah yihiin takhassus oo aqoon khibrad iyo takhasus u leh daweynta iyo qalliimada casriga kombiyuutarka uur ku jirta CT scan iyo MRI waxa isbitaalka kugu diyaarsan mashiinka kaliyaha lagu dhaqo iyo qalab casri ah oo lagu baaro xididada halbowlayaasha iyo wadnaha laguna furo xididada xirma isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudanis